ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta inagu kulmiyey inoo fududeeyey inaynu masaajidka cali barre aynu iskugu nimaadno waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay oo waqti badan oo aanu shaqada soo wadnay inoo fududeeyey in ay noo dhammaato oo si wacan oo wanaagsan ay noogu dhammaato ammaantaas ilaahay subxaanahu wa tacaala kadib waxaan u mahadcelinayaa culimmadii nagu aamintay ammaanadii masaajidkan inaanu dhisno oo qaabkii aanu u naqshadaynay aanu u dhisno waad garanaysaan maalintii aanu bilaabaynay shaqadan sidoo masaajidku ahaa halkaasaanu waxaanu ku soo gudbinay iyadoo sawirro ah siduu maalintii ugu horeysay ahaa iyo qaybihii maalinba uu soo mariyey maantana aynu halkan u joogno furitaankiisii haddii mahaddaas labaad ee culimmada aan ka baxo waxaan aad u jecelahay inaan ka warramo masaajidka iyo qaybihiisa saaad arkaysaan qaybtani waa qaybtii dhulka ah ilaa wuxuu leeyahay 6 albaab oo dhinacaas laba ayuu ku leeyahay dhinacana laba ku leeyahay xagga daba mid buu ku leeyahay qaybna waxaa iskale dumarka waxaanu samaynay in weysada albaabo gooni aanu u samayno dumarku inay meel gooniya ka soo go-aan haddii baakuna qaybta aad arkaysaan dhexe dumarka ayaanu u samaynay waa mesanin floor baa la yihahdaa kadib intaa waxay ka dambeeyey jaranjarooyinku qolo waliba qayb bay leedahay rag iyo dumarku haddii baa ku idmaayo ilaa dabaqa afraad waa lagu tukan karaa oo ruufka ama ka ugu sarreeya ah haddii ay masaajidku marba qaybtii buuxsato mooy qaybtii kale waa la sii isticmaali karaa wuxuu leeyahay security systemkii ayaanu u samaynay ah CCTV-gii in haddii wax dhacaan in la arki karo AC-yadii centraalka ahaa buu leeyahay ad arkaysaan meel walba leh waqtiyada kuleylka ah haddii baa ku idmaayo wuxuu leeyahay liftigii oo ama wiishkii loogu talagalay dadka laxaadkoodu kala dhiman yahay ama odayaasha ah waxaan isku daynay bal wax walba oo casriya oo la keeni karo waddanka inaanu keenno aanu ku dadaalo xataa kaarbadka ad arkaysaa turki baa laga keenay waa nooca ugu wacan ee maanta caalamka laga isticmaalo intaas haddaan masaajidka qaybihiisa aan kaga baxo waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo injineerintii nimankii la odhan jiray technicianka ama xirfadlayaasha ahaa ee had iyo habeen shaqadan soo waday waxaan aad iyagoo u mahadcelinaya waardiyaashii jaamac iyo nin kale cabdiqani oo la-aantood runaantii aysan maanta ay suurtagal noo lahayn inuu masaajidku maanta inoo furmo intaa kadib waxaan jecelahay inaan hal dardaarana ku darsado oo aan dadka masaajidka isticmaalaya aan u jeediyo oo ah walaalayaal masaajidka wada arkaysa waa la qurxiyey wax walba waa loogu hagar baxay idinka waxaa laydinka baahan yahay masaajidka inaad ilaalisaan dhowr qof oo masaajidka loo qoro waxba ma qaban karaan idinkaa la raba masaajidka inaad naafadiisa ilaalisaan baabuurta ka ilaalisaan hadda